waxay inoo timi bishii khayrka badnayd shahru ramadaan waa bil aan bilaha kale la mid ahayn oo ka khayr badan waa bishii soonka waa bishii qur'aanka waa bishii qiyaamka cibaadadana nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo ku dadaali jiray mar walba haddana wuxuu ku sii dadaal badnaa oo dadaalka sii badin jiray ramadaan hadday timaado hataa axaadiista ay ku soo aroortay inuu khayrka uga degdeg badnaa dabaysha dheeraynays marka fursad ayaynu hellay inaan ramadaan aynu gaadhno dad badan oo ramadaantii hore inala joogay ramadaantan may soo gaadhin marka innaguna ma ogin ramadaan dambe oo soo socotay inaynu gaadhi doonno kama warqabno maanta ayaynu joognaa amminta la joogo in laga faa'iidaystana aad iyo aad bay muhim u tahay maa madaa faata waalmu'ammalu ghaybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wixii tegey ee wakhti ahi waa tageen kuu soo noqon maayaan daqiiqaddii ku dhaaftay waa siday kuu dhaaftay waxa soo socdaana waa gayb oo inaad gaadhi doontiyo in kale kama warqabtid saacadda markaa aad joogtaa kuu sugnaataad ka faa'iidaysan kartaa marka hadda ayaynu joognaa ramadaanna aynu gaadhno ilaahayna gaadhsiiyey binicmati illaah alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimmu asaalixaat khayrka ha laga faa'iidaysto hadday soonka tahay iyo ilaalinta la ilaalinayo iyo dadaalka lagu dadaalaayo hadday tahay qiyaamka iyo dadaalka lagu dadaalayo oo taraawiixaha la tukanayo hadday tahay qur'aan akhriska oo qur'aanka in aad loo akhriyo ayaa fiican oo fadli badan waayo waa bishii qur'aanku soo degay weeye waa shahrulqur'aan hadday tahay khayraadka kale aad iyo aad ha looga faa'iidaysto maalmaheedu waa soon habeennadeeduna waa qiyaam khayr oo dhanna in laga faa'iidaysta aad iyo aad bay muhim u tahay waa bishii dembidhaafka waa bishii naarka xoraynta nebigu sala allahu alayhi wasallam waxa uu sheegay habeen kasta oo ramadaan ah dad aanu ilaahay hore naarta uga xorayn ayuu naarta ka xoreeyaa wadaalika fii kulli leyla taasina habeen kasta waa dhacdaa ma aha in la odhanaayo naarka xorayntu waa 10 gaara ee xadiiska saabitkahi waxa uu sheegayaa in habeen kastoo habeennada ramadaan ka midii ay tahay dad markaa in laga xoraynayo naarta oo naarka xorayntu ay jirto ruux walow inaga midi naarta sababtii lagaga xorayn lahaa waa inuu la yimaadaa oo asbaabta ku dadaala